الشيخ أدبو ماتسين هاي إلهي سبحانه وتعالى علمك يا عمرك يعودك انتبهوا بركايو إنك علمك سينقوا أنفعوا سؤاشا وسؤالين بدن صور نقطي بريهنا أدلو قاد قاضي سائلك سوق روح لي قدنينك قبلها دينة إسلامكم حاجة قبتها سؤاشا أفريطمناد سائلك سوق روح لي هاي قف مسلمة oo masaajidka agtiisa jooga aadaankii uu ku baxayo shanta waqtiba muslimna sheeganaya aadaankiina shanta waqtiba uu ku baxayo masaajidkiina aan soo ajiibaynin qofka muslim la oran karaa su'aasha 15aad sa'ilka soo qoray wuxuu leeyahay iyadoo la heli karayo dhakhtar nin ah waxa la yiraahdaa dhakhtar dumar iyadoo la heli karayo gabadhu ma u tagi kartaa dhakhtar raga su-aasha xigta saa'iilka soo qoray wuxuu leeyahay waxa dhacda in iyadoo aan meher kuba dhicin tahniyada la sii qadimo oo meelaha la isoo soo dhigo oo ma aragtay laga sii hordhaco arintaas iyadana shariicadu maxay ka qabtaa su-aasha 17aad wuxuu yiri saa'iilka soo qoray waxaynu ogsoonahay qabyaaladu inay Soomaalida aad u dhaxgashay heer ay gaadhay dadka qaarkood in xuquuqdoodii asaasiga ahaa la lumiyo oo la yiraahdo lagama guursan karo looma guurin karayo wax la mida sheekh maxaad ka oran lahayd iyadana masalada aad ka dhiiban lahayd waa tala soo jeedin su'aasha qaybteena saddexaad ugu dambaysa ee 18aad saa'iilka soo qoray wuxuu leeyahay qof muslima oo aan weligii diinta islaamka barashadeeda u dhaqaaqin awoodayo inuu barto aan kuna tala jirin qofkaas maxaa lagu tilmaami karaa sheekh maxamed alxamdulillaah gudniinkan dumarka runtii waa la soo celceliyaa inta badanna hay-adaha iyo maamulada ama xukuumadaha soo celiya waxaanaynu odhan karnaa malaha waxa dabada ka riixaya ummado kale oo ilaa sida ay doonayaan in loo soo dhigo ama la waafajiyo aan ka hadhayn markay taa caynkaa tahay midka waajibka ah waxa weeyaan shareecadu waxa sida ay dhigayso inuu qofka muslimka ay tixgeliyo waxa wax lagu salaynayaana waa masalada diinta waxa ay ka qabto sidaynu ogsoonahay nusuustana qof waliba ama daliiladana inuu iska fasiro maaha oo marka daliilka la fahmayo la fasirayo aqoon buu u baahan yahay iyo aaliya waanu qofku yaqaano funuuntii loo adeegsanayay naska iyo daliilka marka istinbaad lagu sameynayo ama laga soo saarayo xukum sharciya uu ka mid yahay usuul fiqigi iyo daliilada sida loo jamciyo loo wada akhriyo iyo maraatib al-adilla daliiladu sida u kala miisaan badan yihiin kacaska arkaysa qof caami ah oo intuu naskii qaato dhanku doona u jiidaya waa alqawlu cala allahi bighayri cilm waa qofkii oo ilaahay ka sheegaya waxaanu aqoon u lahayna waa dembiyaday ka mid tahay waaweyn masalada culimada islaamku aad bay uga hadleen kutubta shuraaxda iyo madaahibtu way ka hadleen marka la isku soo ururiyo laba qowl bay leeyihiin labada qowl mid waxa weeye inuu waajib yahay gudniinka yara sunniga ah kii fircauniga lama hayo xaraan waa dambi kaas gudniinka yara khafiifka ah ee waxa yar kooban laga farsameeyo xubinka hablaha inuu faral yahay bay qabaan qayb ka midina waxay leeyihiin waa sunne sunnahana in la fuliyo ayaa fiicnay hadduu qofku fulin waayana dambi kuma dhicin labada qowlun bay ku soo urursan yihiin laakiin qowl yidhi waa xaraan iyo waa dembi iyo waa la joojinayaa ma jiro isagu marka labada arrimood miduun ayuunbaa la yeeli doonaa insha allah su-aashan kale ahayd qof waa nin weeye gurigiisa uu ku dhow yahay masjidka uu ku dhow yahay oo salaadihii jamaca aan imanaynin isagoo oo wax cudurdaar aan lahayn islaamnimadiisu waa caynkee muslim se miyuu yahay horta kol haddii aanu lahayn jamci inkirsanayn oonu diidanayn ee caajis uu yahay oo qof cajsi hayo
iyo wahsi uu hayo ma gaaloobayo oo qofkani qof gaala noqon maayo salaadiisina ma buraysa waa ansaxaysa laakiin dembi buu ku dhacay oo waajibaadkii salaadu ay lahayd mid ka mid ah ayaa uu ka tegey waayo culimmada islaamka qayb baa waxay qabaan salaadu inaanay ka ansaxaynin kol haddaad jamca gaadhi karayso oonad cududaar lahayn ilaa aad jamca ku tukato laakiin intooda badan waxay leeyihin jamcu waa farad marka faral buu qofkaasi ka tegey farnimada waxaa muujinaya nebigu sala allahu calayhi wasalam dee ninkii indhoolaha uu fasixi waaye indhoolaale waxaan ka cabsanayaa bahalahay qaniinaya jamcii miyaan imanaya kaalay buu nebigu meesha indhoole la sii dayn waaye ka war waxaa u daliila nebigu wuxuu tamaniyey dadka jamca ka hadhaya intuu xaafadahooda ugu tago inuu ku gubo guriga inaan ku gubaabaan jeclaystay buuli salaadana cid kale u diraan idhaa ina sii tuki waa arrin adag nebiyuraxma nebigii naxariista shayga uu leeyahay qof baan ku gubi lahaa waa arrin aan sahlanayn iskuna fadli ma aha 720 darajuu ka horeeyaa qofka masjidka iyo jamaca la tukanaya qofka guriga ku tukanaya marka xaawalaydu ha soo toosiyaan raggooda guriga ku habsaamaya dhalinyaradu ha soo toosiyaan wiilal iyo gabdhaba raggu ha yimaadaan jamaca waa farad wa salaadaha faralka way salaadaha sunnaha guriga waa in qayb laga siiyaa oo salaatul leylkii iyo salaatul duxadii iyo rawaatibtii salaadaha raacayay iyo guriga waa in qayb la siiyaa naxariista ku soo degaysa goobta salaada loo badinayo laakiin salaada faradka xukunkeedu waa caynka su-aasha kale odhanaysa ruuxa dumarka ah iyadiyo markay xanuunsato iyadiyo heli karaysa ruux dumar ahoo ugu filan daaweynteeda nin miyay u tegi kartaa dhakhtara maya in ruuxa dumara jidhkeeda nin ajnabi u eego waa daruuro baahi adag baa keentay dee kol haddii aanay baahidii jirin maxaa laga doonayaa xaaraantinimadiibu xukunku baaqi ahaanaya xaaraantinimadii aan jidhkeeda qofkan ajnabiga eegi karaynin ayaa oolaysa halkaasoo jiraysa waxay maalan haysataa dabiibad ama dhakhtarad ugu filan xanuunkeeda inay ka dawayso jidhkeeda eegto la taliso way heli karaysa marka inay tidhaahdo ma anigoo dumara dumar waxii sheegaya oo ay saluugto waa arrin qalad ah xalaalna u noqon mayso inay dhakhtarka u tagto dhakhtarka waxay u tagi karaysaa marka ama ruux dumar ay weydo ama waxba ay uga qaban kari waayaan dumarku ee awoodooda ay ka baxdo wartaasee xalaal u noqonaysa su-aasha kale iyaduna odhanaysa tahniyadda in la horraysiiyo ma saxbaa oo labadii qof oo aan weli ismehersanin la isku hambaleeyo ama iyaguba ay sambaleeyaan amaba isku dhegdhegaan ay sawiraan ama isdhundhunkadaan ama isdhex galaan aynu nidhaahnay horta tahniyaddu wakhtigeedu waa marka labada qof caqadkoodu dhace ay ismehersadaan ninku xaaska u mehersado wakhtigaasaa la odhan karaa baaraka allaahu laka wabaaraka calayka wajamaca baynakumaa bikhayr inta kale dadka iskama xigaan labada qof way haasaaween waaba la isa siiyey way heshiiyeen weli waa kala jaanib wixii isu xalaalaynaya meherku ahaa weli taa dhallinyarada in badanoo ka midii mabay fahminba waxay qabaan hadday heshiiyeen inay dhanta haddii oo aabbaheed yidhi waan ku siiyey inay dhantay mehersan tahayba caqadkii sharciga ahaa ee la guntayay waa inuu jiraa kaasee wax ku xalaaloobaan kaasee xuquuqduna ku timaadaa inta ka horraysa tahniyadina ma jirto waxaana xaaraana inay jidhkoodu istaabto iyo inay isla gooni noqdaanee meel isla galaan iyo inay u wada dhaqmaan nin iyo xaaski waa xaaraan marka aada uga feejignaadaan dhallinyaradu su-aashan kale iyadu waa iska wacyigelinuun qabyaaladda sida xun loo isticmaalayo ee dadka qaarkoodna lagu takoorayo qaarkoodna lagu xaqirayo waxay ka mid tahay un cudurradeenna waaweyne bulshadeenna haysta ee la doonayo culimmadu inay dadka ka suuliyaan ama ka waaniyaan madaxda maalqabeenka acyaanta rijaalu qabaa'ilkuna ay ka mid yihiin ragga qabaa'ilku ummaddani waxay macno ku leedahay ummadnimada laakiin marka la iskala guro qof kasta oo sharaf leh iyo qof kasta oo aqoon leh iyo qof kasta oo awood leh mid waliba u baaba'aya ummaddu waxay u nooshahay ilaahayna uu faray inay u noolaato ummadnimo ummadnimadaasi marka la kala furfuro
qof walba halkiisa cadowgiiyo shaydaanku ay ka helayaan marka waa xaaraan waa dembi qofka qolo uu yahay daraaddeed in la yidhaahdo lagama guursanayo ama inantaa lama guursan karo ama wuxuu gowracaa waa bakti ama waa laangaab ama waa gun ama waa midgaan waa dembiyaday ka mid markaad ereygaa tidhaahdo quluubta ummad dhan baad dhaawacaysa sidaa daraaddeed ilaahay agtiisa waxaa laga yaabaa inaad cadho ka mutaysato inaad ka toobad keentaana waa waajib raaligelina ka bixiso marka waa arrimaha inoo yaalla sidaynu u suulin lahayn aynu uga hortegi lahayn si aynu horumar u gaadhno haddii kale halkii aynu taagnayn baynu hoos uga sii soconaynaa adduun iyo aakhirana waxay nagu dhacaya runtii dibdhac weyn su-aasha kalena waxay ahayd qof muslimahoon diintiisa waxba ka baranayn dee waajib buu ka tegey waa dembiile cilmigu waa laba qaybood cilmi barashadiisu kifaaye ay tahy oo dadka qaarkood lagu leeyahy iyo cilmi barashadiisu ay caynito qof walba lagu leeyahy cilmiga barashadiisa qof walba lagu leeyahay ee cayniga ahay waxa weeye ka cibaadooyinkiisu ay kaga ansaxayso ama xuquuqda lagu leeyahay uu ku fulinayo talan cilmiga salaada soonka sakada xajka xaqa adiga iyo xaaska idin dhaxeeya mucaamalaadka markaad shaqaysanayso wixii wax kaaga ansaxaya cilmiga noocaasa ee shaqooyinkaaga iyo la dhaqanka xidhiidhka adiga iyo ilaahay idin dhaxeeya xidhiidhka adiga iyo ummadda idin dhaxeeya cilmiga inaad barataa waa farad ma laa yatimu lwaajibu ilaa bihi fahuwa waajib shayga aanu waajibkayna saarani dhammaystirmaynin ilaa isaga la helo isna waa waajib marka cibaadada kugu waajibka cilmigeeduna waa waajib haddii kale cibaadadii baan ansaxayn ninba halkaa ku tukaday nebiga sala allahu calayhi wasalam masjidkiisi nebigu wuxuu lehay salaadiba kaama ansixinba waa kii ku celiyey 3 jeer ninkii loo yaqaanay musii'u salaati salaadiisa xumaynayay markaa dee adigana waxaa lagu odhan karaa salaaddii kaamay ansixin soomkii kaamuu ansixin sakadii kaamay ansixin rasuulku sala allahu calayhi wasalam wuxuu lehy talabu alcilmi fariidatun calaa kulli muslim qofka muslimka ah inuu cilmiga barto waa farad calaa kulli muslimin wa muslima riwaayinka qaarkood waa muslima ku daraysa inuu qofka muslimkaa cilmigaa barto oo uu raadiyo wax kaga ansaxayaan caynigaa waa farad markaa ha odhani weligaa waan tukan jiray weligaa baan kaa yeeli jiray weligaa baan saa soo samayn jiray waa sax khayr baad soo waday allah ka aqbalo laakiin inaad wax korostaa waa daruuri marka cilmi badan baa masaajidka ka socdaa idaacadaha ka socdaa ku jira meelahan wax lagu duubo qof walowba waa inaad culimada la tashataay oo aad tidhaahdo dee waxaasaan wadaayo bal hadda qiyaas maxaa iga dhiman wixii kaa dhimanna aad dhaqso u dhammaystirto wallahu aclam waa mahadsan yahay sheekhu ilaahay subxaanahu watacaala miisaanka xasanaadka u saaro waxaynu insha allahu tacaala maraynaa su-aalaha qeybtii ugu dambeysay su-aasha 9 iyo 10 wuxuu leeyahay saa-ilka soo qoray shirabaadada ma la masixi karaa sheekh wakhtiga weysada oo halkuu qofku ka meedhi lahaa cagaha isagoo shirabaadadiisa xidhan ma masixi karaa su-aasha 20aad saa-ilka soo qoray wuxuu leeyahay waxaa jira sheekh baryahan dambe dad hadal ka keena madaahibta fiqiga islaamiga ah madhab imaam shaafici iyo imaam axmed iyo abu xaniife iyo aimada kale marka arrintaas maxaa dadka noocaasi kula talineed mase bannaan tahay qofku madhab gaar oo madaahibta fiqiga ka mid a inuu yidhaahdo waan raacayaa su-aasha 21aad saa-ilka soo qoray wuxuu leeyahay waxaa jira iyaguna dad mulxidiina oo badan oo xataa soomaaliya ay ku jiraan oo diinlaawayaala oo ilaah ma jiro qaarkood ay gaadheen walciyaadu billaah maxaa nagala gudboon buu le ninkaasi haddaanu anagu nahay dadkii ducaadda ahaa inaanu ku wajahno su-aasha 22aad saa-ilka soo qoray wuxuu leeyahay sheekh shirkad baan ka shaqeeyaa waxaan doonaya shaqada inaan ka tago booskii shaqadaas cid kale ma ka kirayn karaa amaba ma ka iibin karaa su-aasha 23aad saa-ilka soo qoray wuxuu leeyahay sheekh guryo dhaxala oo aan weli la dhaxlin oo aan la qaybsanin baa dadkii dhexlayaasha ahaa qayb ka mid a guryihii intifaacsado way ku jiraan iyagaa degan qaybta aan guryaha deganin kuwaas kirama ka qaadan karaan su-aasha 24aad saa-ilka soo qoray wuxuu leeyahay waxaa dhacda wakhtiyada qaarkood markaad xafiisyadeenna dowladda ka mida aad hawli kaa gasho ee wixii lagaa rabay aad bixisay xafiiskaasi kaaga baahnaa waxaa dhacda wakhtiyada qaarkood shaqaalaha qaarkood inay ku yidhaahdaan ducadii noo soo dir waa duco aan dee cashuurtiina ahayn wixii lagaa rabayna ahayn
laakiin dibadda ka ah haddii aad qofka adigoon dee laaluush lagugu xidhana aan ahayn wax kalena aan ahayn qofkaa kuu shaqeeya hawshaa kuu qabtay aad tidhaahdaa layleh intaa yar isaga tuur laaluush ma soo gelaysaa su-aasha sheekh maxamed ugu dambaysa ee 25aad ee su-aalaheena caawa aynu kusoo khatimayno saa'ilka soo qoray wuxuu leeyahay waa gabadh baa soo qortay weliba dibadda ka soo qortay waxay tidhi sakadii ayaa waxaan siiyey dad masaakiina iyo dad fuqara ah iyo dad kaloo masaakiin iyo fuqara midna aan ahayn laakiin abaal ay igu lahaayeen oo ii galeen daraaddeed aan iyagana u siiyey anuu abaalkoodii ka jawaabaya sidaana waan ku bixiyey sakada xaalkeedu muxuu noqonayaa sheekh maxamed بسم الله الحمد لله su-aasha hore sharabaadada in la masaxo iyo xukunkeeda intooda badan culimada islaamka ama fuqahada iyo jumhuurtu waa diidan waayo nabigu sala allahu calayhi wasallam wuxuu masixi jiray in la masaxana faray ama ogolaaday khufka waxa la idhaahdo khufkuna waa shay adag sharabaadadeennuna sidaynu ogna waa khafiif qolo quraa banneeyey in la masixi karo madhabulxanaabila madhabta xanaabilada iyaguna waxay shardi ka dhigeen inuu sharabaadkaasi aada u adag yahay oo biyaha celinayo oo suuf adag ama dun aada u adag kuwan dhulka barafkaa la gashado laakiin hadda waxaynu odhan karnaa sharabaadada aynu isticmaalno maadaama dhulkeennu kulul yahay waa kuwii khafiifka ahaa ee aan la masaxaynin marka waxaynu ku daynaynaa qofku inuu khufkii wanaagsanaa raadsado helo mooyaane kuwa khafiifka ah ee biyihii sii daynaya noocii la masaxayay ma noqonayaan su-aasha kale madaahibta in la diido maxay noqonaysaa ogowo sidiisaba qofku haddii uu madaahibta diiday isaga laftiisaaba madhaba meel cidla ama taagna madaahibtii hadduu diido isaga laftiisaaba wuxuu leeyahay qudhaydaa madhaba iga dhagaysta dee aan kaa dhagaysanay maxaad haysaa haddii waxba aanu haynin oo aqoon aanu lahayn madhab miisaan loo daliilahoo nusuustii uu daliishanayo wax uu qorayna aanu jirin halkiisuu iska fadhiyayaa dadkuna waa laba qaybood qof waa caami qofna waa caalim qofna waa daalibulcilm qofka caalimka ama daalibulcilmiga ah ee masaa'ilka kala saari karaya labadaasi daliilka waxbay ka qaadan karaan qofka caamiga ahay muxuu yeelayaa qofkii caamiga ahayn waxba akhrii karaynin haddii aanu sheekha ama madhabkaasi wuxuu yidhi aanu qaadanin ma cidlo istaagaya mise isagaas qanciya marka qofka caamiga ah ee aan waxba garanayn aqwaashii culimada marka la yidhaha sheekhu ku kalsooyin sheekhaasi caynkaa yidhi waa qaadanayaa qowlkiisa qowlkaasina wuxuuna shardiga goorta la qaadanayo inaan laguu sheegin inuu yahay mid daciifa haddii qowlkaasi uu bilaa daliil yahay ama madhabtu meesha ay daciif ku tahay oo adigu aada ogaato waad iskaga baydhi doontaa dadkan mulxidiinta ah waa jirtaa inay soo badanayaan oo nidaamkii ama wixii aragtidii shuuciyadda iyo in badanoo raasamaaliyiinta ka mid ihi wixii ay qabeene ahaa itus oo itaabsii ilaahay itus oo itaabsii ma taabanayo ma arke ayaa hadda soo biiraya oo soo badanaya oo caalamkan isu furfurmay ee maqsinka keliya noqday dee shar iyo khayrba uu leeyahy wax badan oo diin iyo dunyo ah oo dadkii ay isdhaafsanayaan wuu jiraa laakiin wax badan oo shar iyo balaayo ah ayaa la kala qaatay sidaa daraaddeed baa suntaasi dad badan ay gaadhay oo da-yarteennuna ay ka mid yihiin mararka qaarkood waxaa la tilmaama dhallinyarada soomaalida ee dabadda jooga dee inay qayba yihiin qayb ka midi waa dad ilaahay wanaajiyey oo diinta cuskaday oo ilaahay ku ilaaliyey qayb ka midihina noloshii bay ka dhaceenoo waa kuwa daroogada iibinaya qayb baa jirta iyagu mutacalimiina oo gaalada aada ula dhaqmay oo akaadiminiyo meelo sare aqoonta ka gaadhay shahaadooyin waaweyn qaatay kuwaasi in badan oo ka midihi waxay khatar u yihiin ama qaarkoodba ay u badan yihiinba inay qaataan nidaamka mulxidnimada itus oo itaabsiiya waa nasiib darro dadka qaarkood ku dhacday doorkeennu waxa weeye haddii la yahay madaxda iyo waalidka iyo saaxiibbada iyo culimmada dee inaan loo kala hadhine dadkaa la badbaadiyo waa qof ehelkaaga waa qof ummaddaada ahaan jiray hadhow waxaa laga yaabaa isagoo sunaysan intuu kuu yimaado in dhakada lagaa saaro oo la yidhaahdo kana aqoon-yahana kana indheergarada kana wax badan soo tijaabiyey
meesha madax buu ka noqonayaa dee mulxid madax kuu noqday kuguna abtirsimadaadiina bal ka sheekee dhana la dhanaad isaga gaalkiina dee waa ku daba jiraa oo xagga dambe ayuu isna kaga jiraa dalka in yar baaba lagu bedeli karayaaba 10 nin oo mulxidiintaasi hadday meel qabsadaan gaalkiina daba taagan yahay iyo yuhuudi iyo wixii balaayooyinkii waxa laga yaabaa dalkuba inuu si dhib yar khatar u gali karo marka in diinta ilaahay loogu yeedho in culimada aqoonta ula baabkan ay la doodaan oo la qanciyo haddii uu qanci waayana in dadweynaha looga digo oo loo sheego si fitnadiisa aanu ummadda u gaarsiinin su-aasha kale ahayd haddii aan meel ka shaqaynayo ma kirayn karaa mase iibin karaa maya waxa weeye booska aad ka shaqaynayso adigu shaqadii marka aad ama ka fadhiisato ama kari weydo ama meel kala tagto cidda mas-uuliyadda le u daa cid kufu ah oo ummadda u shaqaynaysa ayaa loo diri doonaa marka mana iibinaysid mana kiraynaysid waa nooc fawdada ka mid ah fawdadii bay ka mid inaan dadkii la dhigin meeshii ku munaasibkahayd bay ka mid intuu qof meel qabsado inuu yidhaahdo anigii reerka iyagaa dhaxalnay sax maaha waxa weeye marka shaqooyinka la qaybinayo shaqooyinku waa ammaano ammaanadii ummadda weeye in allaha yaamurukum an tu'addu lamaanaati ilaa ahliha ilaahay wuxuu la hadlay mas-uuliyiinta wuxuu ilaahay wuxuu idin faraya ammaanada inay ehelkeeda gaadhsiisaan ehelkeeda saad ku gaadhsiinaysaa waxa weeyaan waa wadcu rajuli lmunaasib fi lmakaani lmunaasib qofkii munaasibkaa in meeshii ku munaasibka ahayd la dhigo shaqooyinkii loo tartamo dadka khibradda ule dadka aqoonta ule loo qaato oo aanay qabiilana u xidhnaanin qofna u xidhnaanin taasina wuxuunay ka mid tahay cadaalad darrada kol haddaad aragto wax meel cid u xidhan oo boos la iibsanayo waa arrimaha dadka ka dhaxeeya weeye laakiin wixii meel khaasa ah ee dee qofku isagu gaar u leeyahay taasi waa gooni su-aasha kale waxay ahayd dhaxalka la wada leeyahay tana dadka qaarkood baa waalidkii uga dhintay ama xigtadii dhaxal buu uga dhintay wixiina waa wax wada leeyahay ama xoolo nool ama guryo ama wax la intifaacsanaya maxaa laga yeelayaa ama dadka qaarkood ma iska intifaacsan karaan si gaara marka hore horta waxaa xusid mudan ilaahay dhaxalka wuxuu ummadda ugu jideeyey si aan dadku isu nicin qof waliba inuu xaqiisii qaato oo marka qofkaa dhintay la aase hawshii loo dhammeeyo markiiba la kala qaato dhaxalka oo xataa ka uurka ku jira iyo ilmaha yar intuu qaan gaadhay midna la sugi maayo ka uurka ku jirana dhaxalkiisaa la siinayaa ilmaha yareen qaan gaadhina dhaxalkiisaa loo cayimayaa ciddii mas-uuliyadda caamkaa leh ama qofka dee ugu mas-uulsan baana u haynayaa waxaa loo degdegayaa qofka in wixiisii la siiyo marka waxaa qalad ah oo dembiya oo in xaq raacay noqonayso qof iska haysta wixii la wada lahaa kiradiisa qaadanaya kuu doono iibinaya oo cunaya iska maalaya dhankuu doono u ridaya kuwii kalena halkan uun ka daawanaya marka la dhaxlayo waa la soo xisaabinayaa kaa xisaabi xilmale baa la idhaah dhaxalka iyo wixii ka soo baxayba waa dhaxal dhaxalka iyo wixii ka soo baxee uu dhalayba waa dhaxal xataa qof biil lihi ma jiro agoonka yar ee aabbihii uu dhintay biil ma laha laakiin dhaxal buu leeyahy yuu biil ku leeyahy kii xoolahan lahaaba uu dhintay waalidkiisa ahaa dhaxaluun buu leeyahy islaanta laga dhistay dhaxal bay leedahay marka waa in qof walba dhaxalkiisii loo cayimaa oo loogu shaqeeyaa hadday dhacdo cid gaara inay intifaacsatay kira loo xisaabinaya 15 sanaad guriga ku jirtay Soomaha ama bakhaarkan bishii intuu ahaa 12 bilood baa loogu dhufan 10kii sana loogu sii dhufan aba laga yaabaa in daalac loo raacaba isagu dhaxal buu doonayaa in xisaabi weey marka sharcigu cadaaladu ilaalinaya dulmiga waxa la yiraahdaa khatar badan buu leeyahay xoog iyo xiniina waxba kuma socdaan marka dhaxalka wixii ka soo baxay isaguna waa dhaxal weeye qofka yiraahdo anigu waan ku jirayaa meelihii wixii dhaxalka ahaa ama guriyihii baa ku jiraya intifaacsanaya waa in lagu heshiiyaa in isaga laga kireeyo ila waa shuraako iminka haddaynu shuraako nahay 10 qof baynu mesela shirkad ku leenahay saamileeya shuraako ku nahay miyuu qof bakhaar aynu wada leenahay iska qabsan karaa ma qabsan karo waa inuu yiraahdo war bal aniga u baahan halkii cid kale laga kireyn la aniga iga kireeya maxay iga kireynaysa sideen kirada u bixiyaa nidaamkaas un bay la mid tahay ayuu dhaxalkuna la mid yahay waa shuraako marka arinta waxaan ugu dheeraaday mushkilad baa ka jirta
dadka had iyo jeer waaweyn ama nin odhanaya reerka aniga u odaya halkii aabbaan ku jiraa edab yeesho iga aamusa kaasaa iska liqayaba wixii maatida kale lahayd oo ku xalaashanaya iga aamusada marka waa la xisaabinaya maalinta la dhaxlaya waa la xisaabinaya agoontu waxba kama dayn karaan qofka waalanina waxba kama dayn karo ama maskaxda wax uga dhiman yihiin laakiin dadka waaweyn ee qaangaarka iyaga waa loo weydiin 10 sanadood buu hebel gurigan iska haystay ama xoolahan maalaye intaas wixii ku baxay noqday ma ka daynaysaan mise waa la idin xisaabiyaa ikhtiyaarkay leeyahay haday yiraahdaan waa ka daynaa waa ka dhacaya haddii laakiin ay yidhahdaan ha nologu shubo waa loogu shubaya taana saasayno ayaynu markaa xukunka sharciga saas u noqonaya su-aashan kale ah qof u shaqaynaya dowladda ama xukuumadda ama hay-adaha maamulka in markuu hawshii u taalay bulshada uu u qabto inuu uu dhammeeyo inuu yidhaahdo ducay dhib arrinta noocaasi maxay noqonaysaa dii duca maaha waa habaar marka la soo ururiyo waa habaar waayo waxa loo yaqaana waa hadiyatul ummaal dadka shaqaalaha ah hadiyada la siiyaa waa qayb kamida laaluushka waxa uu daliil xadiidkii saxiixa ah ninbu nabigu u diray sallallahu alayhi wasallam inuu xoolo soo ururiyo markii uu xoolihii keenuu nabigu doonay inuu la xisaabtamo wuxuu yiri bal wixii aad sitekeen wuxuu yiri hada li wa hada lakum inta ana la isoo hadiyay intana muslikiinii dirtay baale aad buu nabigu uga carooday waa kii minbarka fuula ka radiyay magaciisa muu sheegin laakiin wuxuu maxay u dhacaysaa intoonu nin u dirna meel inuu wixii uu keenay faraaraw yeelo uu kala qaybiyo oo wadaada kaana idinkaale kaana anigaale bal muu fariista gurigii hooyadii iyo aabihii oo eega in wax loo soo hadiyeeyay in kale waxana qay nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiidkaas wuxuu cadaynayaa qofka mas'uuliyad caam ah ummadda u haya kama qaadan karo wax hadiyada dadka wax ma weydiin karo shuruud kuma xiri karo waxa la iska ogsoon yahay ducada uu maanta ku weydiiyay hadaad siin weydo oo berrita soo noqoto ka war saas uu ku eegaya wuxuu oranaya kan waa ma ducaysanihi kuuba shaqayn maayo ama afku ku maroorinaya ama afku ku gelinaya ila markii hore inaan kala ducaysanine leena waxbaanad siin ribid baad ayuu goodhow ku ribdaya marka waa meelaha laaluushku ka faafo qofkuna marka meelaha caamka wax ka shaqeynaya wax ku filan uu waayo waanu raada shaqadiga qabsada ama ii kordhiya labada midun baa u taala laakiin uu dadka dhibo laaluush ka qaada ama hadiyad weydiisto waa arin aad iyo aad u khaldan oo aan sax ahayn xaraan astaaynu xadiidka saxiixa soo qaadanay su'aasha u dambeysay 25aad waxay ahayd qof baan saka siiyay sababtaan sakada u siiyayna waxay ahayd anigoo abaal marinaya eega tawfiirso ma aha inuu baahan yahay oo dadkii sakada lahaa uu yahay iyo fuqaradii laakiin waxaan wuxuu siiyay qof abaal igu leeyahay markaas kan waa qof wanaagsan in wax la siyaabo istaahila dabeetana sakadii baan siiyay dadkii sakadana muu ahayn maxaa la yeelayaa markaa abaal marinta aad bixisay Allah ka aqbalo iyo qofka aad u abaal guday laakiin sakadii waa lagu leeyahay sakadii fuqaradii iyo masaakiintii sideedii qolo way ka sugayaan qofka aad abaal marisayna ihsaan baad samaysay sakadaasi meesheedii may dhicin ehelkeedii may gaadhin waa lagu leeyahay waana dib u qallayso su'aalintaasay noogu dhamaadeen waqtiguna waa iska dhow yahay waxaan ku soo gabagabayn lahaa mawduuca laga waramayay sida horeba la idinku soo sheegay wuxuu ahaa xusuusta aakhiro iyo diyaar garowgeeda waa mawduucan aan islaayahay maanta waxyaabaha aynu aad ugu baahannahay inay xusuusino ayuu ka mid yahay mawduuc xuseynaya weeye baabka la yiraahdo az-zuhdu fi dunya adduunyada in lagu saahido laba arrimood baa kala jiro az-zuhdu can dunya wa-zuhdu fi dunya adduunyada in laga saahido ma ogola islaamkeenu oo xoolihii la iska dhigo oo shaqooyinkii la iska dhigo oo xadaaradii oo horumarkii oo meel la fadhiisto waa nidaamkii kaniisadda iyo boobabkii iyo soorooyinka gaaladuna ay ku naceen diintooda kristanka laakiin waxa la doonayaa az-zuhdu fi dunya inagoo shaqaysanayno horumarkii wadna
iyo istaraatiijiyadii dhoweyd iyo tii dheerayd si caam iyo si khaasaba masaalixda ummadda u fikirayna inaynu haddana adduunyadii ku dhex saahidno sida loogu dhex saahidayaa waxa weeye waa inaad taqaanaa adduunyadu waxay tahay adduunyada iyo xoolaha aynu hayno iyo dhaqashadeeda iyo shaqooyinkeeda iyo cilmigeeda iyo wax soo saarkeeda iyo kursigeeda iyo madaxtinimadeeda waxa ay tahay waa inaad garataa waa wax ayaama ah aynu kuna imtixaananahay cadiyo kastoo ilaahay uu ku siiyo waad ku imtixaananta cuud buu ku siiyey iyo xoolo cudud iyo awood buu ku siiyey cilmi buu ku siiyey caqli aad dadka dheer tahay buu ku siiyey waxaasoo cadiyada iyo deeqa waa wax aad ku imtixaananta latus'alunna yowmaidin can innaciim nicmooyinku ilaahay idin siiye maalintaa waa laydin weydiin doonaa qofba qofka uu ka nicmo badan yahay wuu ka su-aal badanayaa maalinta qiyaamaha markaad dheeraadkaa aragto waa inaad ogaataa inaad imtixaankaagu aada u weyn yahay kadibna shaygaa waa inaad isku daydaa inaad uga faa'iidaysato sida sharcigu ku farayo inaad ka sahay qaadato naftaada iyo ummadda iyo waddanka iyo diinta inaad uga faa'iidayso ayaamo yaroo kooban baad haysaaye intaan fursaddaasi ku dhaafin inaad ka faa'iidaysato waxaa dhacdaa mararka qaarkood markaynu adduunyada ku dhex jirno iyo shaqadeeda iyo siyaasaddeeda iyo maamulkeeda iyo madaxtinimadeeda qafladdaa badata qafladda alqafla cudurrada bulshada ku dhaca waxaa ka mid a cudurka la yidhaahdo qafladda qafladda waxa weeye warmoogaanta qofka oo meeshu u socdo iyo waxa ilaahay uu ka sugayo iyo aakhiradu geediga uu yahay ilaawa kadibna hawshan uu wada uun isku ilaawa wuu isku ilaawaya cibaadadii buu ka mashquulayaa cilmiga barashadiisii buu ka mashquulayaa qalbigiisii inuu qooyaa buu ka mashquulayaa dadka saalixiinta waa wanaagsan inuu ka ag dhowaadaa buu ka mashquulayaa dardaarankiisa inuu qoraa buu ka mashquulayaa diyaar garow ma leh safar baa la gelayaa safarkii uma diyaarsana qofkii qaafil weeye qofkaas hadduu qaafil yahayna qof kastoo qaafil oo qaflad ku jira marun baa la qaban marka la qabtana wuxuu ku dambaynayaa uun qaala rabbi irjicuun lacallii acmalu saalixan fiima taraktu kalaa inahaa kalimatun huwa qaa'iluhaa qaala kalaa inahaa kalimatun huwa qaa'iluhaa marka la qabto nin weyni wadkii waa yaqaanaa ayuunbuu leeya ilaaha i celi wixii aan ku gaboodfalay ee aan ka faa'iidaysan waa ilaah aan soo sameeyo aan sadaqo bixiyo aan dacwaddii faafiyo aan wanaaggii faro aan toobad keeno ilaah ii kaadi ilaahayna wuxuu ha ka yaabay mar hadday kaa soo dhammaato wakhtigaagii aad qaadatay kuma kaadinayo marka walaalayaal waxaynu leenahay sidaa uu nebigu ina baray sala allahu calayhi wasalam innagoo hawlaheenna wadana alaabtuna haynoo xidhxidhnaato waxaad ka soo qaadaa un qof intuu deegaankiisii ka yimi doonayo inuu ku noqdo halkanna usoo yaro shaqo tegey oo ayaama joogaya oo ka noqonaya qofkaasi wuxuu isku dayaa inuu halkan aanu rar dhiganin iskuna ilaawin alaabtuna u xidhxidhan tahay wixii uu u yimidna ka muraadsado ka dhamaysto adduunyada waa noocaas oo kale marka waxaynu isxusuusinaynaa dhammaanteen inaynaan ilaawin maalinka rumayntiisa aynu rumaynaynaa arkaanta iimaanka uu ka mid yahay aliimaanu bilyowmi alaakhir muxuu arkaanta iimaanka loogu daray rumaynta aakhiro waxaa loogu daray inay dadku xusuusnaadaan qofka maalintaa qiyaamaha xusuusan intuu isa soo taago inuu ilaahay is hortaagi doono iyadoo aanu reerkiisii la socon iyada oo maalkiisii aanu la socon iyadoo dowladdiisii aanay la soconin isagoo keliya amaam allah inuu ilaahay isa soo hortaagayo qofka aaminsan camalkiisiina halkan loo soo dhigayo naartiina ay halkan tahay qofkaasi ciyaari maayo nolosha ku ciyaari maayo qofkaasi dulmi wax ku cuni maayo qofkaasi dad ku xadgudbi maayo qofkaasi cadaalad darro samayn maayo qofkaa tudhaalaha ku badan mar hadduu ogsoon yahay in miisaan waxa la isu saarayaa uu jiro oo ilaahay la is hortaagayo naftiisu u tudhanayaa ummaddu ayuu u tudhayaa wuxuu u tudhayaa xayawaanku u tudhayaa tudhaalaha iyo naxariista qofkaa ku badan markaa arrintaasaynu aada isu xusuusinaynaa aadna u adkaynaynaa hawlaheennana aynu wadanno waxay waayahuna xagga dambe ku dambeeyaan aakhiru war jiraa nin baa odhan jiray aakhiru war jiraa waa run 112 aayadood baa aakhiro ka warramaya oo intuu ilaahay adduunyada ka digo ayuu aakhirana inagu baraarujinayaa adduunyada qur-aanku inaguma waaniyo iyo shaqaysta way yaryihiin aayadaha ka warramaya inuu qofku adduunyada wax ka qabsado
laakiin aakhiro in loo shaqaystaabaa aada u badan adduunyada innagaa iskaga buuxsan aakhirana waynu ilowsannahay waxaynu cawaamilka waxyaabaha caqabada iyo cawaamilka ah ee aakhiro ina ilowsiinayaabaa aada u badan naftiibaa kowa shaydaankiibaa taagan gaalkiibaa taagan balaayo dhan oo isxambaara ayaa aakhiro ku ilowsiinaya markaa aynu iska diyaargarowno qofkii xuquuq lagu leeyahay maanta siduu nebigu sheegay sala allahu calayhi wasalam ha isa safeeyo xuquuqa ummadda ay leedahay dad ka qaadatay isa safee haddii qof xaq kugu leeyahay iska safee intaana diinaar iyo dirham waayin buu nebigu leeyahay sala allahu calayhi wasalam intaanaad adigoo faranbaran ilaahay hortegin maantaad waxaysaaye ka gaadhsii balo fiirsan nebiga calayhi salaatu wasalaam maalin buu salaaddii dadka tukiyey intuu booday nebigu ayaa safafkii uu sidaa u jiidhay iyadoo dadkii wada arkayo tasbiixdii iyo istikfaartiiba aanu gelinba mudduu maqnaa markii dambuu soo noqday dadkii oo yaabay oo yidhi war talow maxaasaskiisii iyo ciyaalkiibaa cidi dhimatay balaayadan dhacdee nebiga loo sheega waa maxay walla hadlo wuxuu yidhi wax kale may dhicine in yaroo saka ah oo dahaba aqalka taalayoo waxaan u degdegay inaan idhaahdo dhaqso u qaybiya iyo fuqarada iyo masaakiinta gabalka uga dhicin bal ka waran siduu nebigu calayhi salaatu wasalaam dadka xuquuqdooda ugu degdegayo innaguna halkaynu maraynaa naftaada qiyaas markaad wacdiga dhegaysato intaasumaan sii raacin lahaa ilaahayna waxaan ka barayaa waxaynu isu sheegayno inuu inaga dhigo kuwo weeleeya oo ku dhaqma oo ilaahayna ka abaalmariyo wajazaakum allahu khayran wahada maa aquuluhu waastaqfiru allah والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إلهي سبحانه وتعالى شيخ كاباليو ونودع عيننا إلهي سبحانه وتعالى شيخ عمر دير عباد الصوبان إلهي سبحانه وتعالى هسيو رنتي أمد ميلوين بوغو جراي إلهي سبحانه وتعالى هبرك يا دنيا آخربا رنتي ولا ليال حنو انتا كسو ختمي دونا موضوع قيمها بدن كور رميي adduunyadan runtii liidatay inaan lagu dagmin ee aakhiro loo jahaysto oo sheekhu caawa inoo soo khatimay afar habeen bay inoo soo socoto hore caawa shan ahayd waxaa mowduucaas inoo soo qabanqaabiyo inuu mahadnaqaynaa mu'asasada dacwadda iyo faafinta diinta ku howlan ee magaceedu yahay alkaram oo gobollada somalilan oo dhan ka shaqaysa mu'asasada iyo howlwadeennada ka howlgalaba ilaahay bina subxaana watacaala u baryaynaa waxaa kaloo inuu ducaynaynaa masaajidkan barakaysan iyo maamulkiisa hadday tahay sheekha masaajidka iyo culimada masaajidka guud ahaan muadinka howlwadannada kale waxaa kaloo duco mudan iyaguna jamaca barakaysan ee rag iyo dumarba leh ee iyaguna ka faa'iidaystay duruusta diiniga ah ee masaajidka ka socotay waxaa kaloo inuu mahadnaqaynaa dadka inaga maqan ee sida tooska ah inoola socda iyo dadka gaari doonaan mawaadiicdan ba iyaguna dib uga faa'iidaysan doona inahaasaynu insha allahu tacaala kusoo khatimi lahayn ilaahay waxaynu weydiisanaynaa inuu dembigeenna ku dhaafo kii waalidkeenna ilaahay subxaana watacaala ku dhaafo aakhirada ilaahay subxaana watacaala cis iyo sharafina siiyo adduunkana wanaag ilaahay subxaana watacaala inagu nooleeyo kulayl badan baa laga cabanayaa ee ilaahay subxaana watacaala ha soo qaboojiyo dadkeenna waxaynu ilaahay subxaana watacaala u weydiinaynaa inta xanuunsanaysa caafimaad degdega allaha siiyo inta caafimaad qabtana allah subxaana watacaala ha u siyaadiyo ifsan iyo aakhirasan ilaahay subxaana watacaala hayna siiyo wajazaakum allahu khayran والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.